waa banaanbax ka dhana booliska degmada Jowhar oo ay dhigayaan ehelada ku dhawaad 100 dhalinyarada xaafadda Hantiwadaha ka tirsan oo loo haysto kiiska qarax xalay lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Sugaal Ismaan iyo wiil uu dhalay. banaanbaxayaasha ayaa ka hor inta ayan dhigin banaanbaxa waxa ay hortubteen saldhigga booliska degmada iyaga oo dalbanaya in loo sii daayo dhalinyarada xirxiran balse booliska ayaa u sheegay in ayan jiri doonin cid la sii dayn doono ilaa baaritaan dhab ah lagu sameeyo eedeysanayaasha xiran. ugu dambeyn booliska Hirshabeelle ayaa rasaas ku kala cayriyay banaanbaxayaasha oo u badnaa caruur iyo haween. Daraya saya gue. Haan تقرأ أنا بس. علي حرب قالك. حبيبي. عبد الشكور شاشة CNN جوهر.